السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي القالي أسسوا نقد وناكسن وأنا دقسي مقنطة هل من بيس كسر على واي وحيابة أنا كسيحة كرنا جرتو أصحابي فيديوغي ugu dambeeyay oo aan ka hadlayay wixii lagu faanij wixii laga xishoon jiray ayay hadda dumarka ku faanaan dad badan baa ka soo falceliyay laakiin dadka inta ugu badan si positive ay uga soo falceliyeen laakiin dadka negative ka uga soo falceliyay kulligood waxay u badan yihiin dumar halkaas waxa kaaga cadaanaysa dumarka in xaq loo sheego inay aad u necab yihiin waxa waaye hadda macnaha waxyaabo aniga waxaan ka hadlay dumarka maahan waxaan ka hadlay war xaaraanta waa loo wada siman yahay qof walba xaaraanta ilaahay qofkii dambi ka gala waa loo wada siman yahay isku ciqaab baa la marayaa laakiin kama hadlayo aniga xaaraan waxaan ka hadlayaa xishoodka iyo dhaqanka iyo mustaqbalka hablaha ayaan ka hadlayaa marka ina isfahana isku daya asxaabay wax horta marka hore haddaan nagu cusub tahay fadlan subscribe ta naga hilmaamin lana share garay asxaabtaada iyo familkaaga like tona waa xagaaga asxaabay waxa waaye hadda dumar badan waxa arkay ha dumarka alad ku tahay ha maandeeqay waxaan ku maleynay feminist or feminist maxaa la dhahaa artay waaga Mareykanka soo galay America soo galay ba shiiqyada kamida su'aalo la weydiin jiray shiiqow sabareedka ka waran sabareedka shiiqi sabareed iska dhaafay English si loo qoro dhanba yaqaan sabareed wax la dhanba yaqaan wuxuu yiri maanday anigu waxaan qaanaa in la isqabo iyo in la isfuro furiinka maxaa ka qabtaa iyo qabniinka maxaa ka qabtaa miya marayna maxay tahay waxaan kale ay weydiinaysid marka hadda anigu feministiga waxa ay weydiinaysin hadda anigu maba garanayaba wax feminist la yiraahdo maba aqaanaba anaga dhaqan baan leenahay dhaqan baan ugu la soo koriyay nimankan inaan ka dambeeyno waa waajib oo ilaahay uu na faray waaye hadii marka feminist waxyaabaha qaar oo feminist ay sheegaysin masana in xaaraanta lagu faana saan miya feministiga sheegaysin waleela daawada waan haybiya manahaye haraadaye sidoo helaa horta gabadhan ilaahay horta awlaad saalaxa inkastoo ay fiicnad waxa waa inuu qof ilaahay ku bariyo in adiga barisida fiican horta ilaahay waxa uga baryaa awlaad saalixiin oo baariin oo xalaal inuu ilaahay siiyo laakiin hal mid ayaan rabaa inaan dhaho walaalay marka dheeyta ilaahu wacal xataa isii macnaha wacalka dhibaatada uu leeyahay kamaada fakarid miya marka waxaa jira oo macnaha waajibil isku leeyahay jiro iyo xuquuq la isku leeyahay anigu waxaan ka hadlayaa dumarka ayagoo xanuunsan ama walaca ama ilaah kuma darada ama umula ama caadaha qabto ama si kala u xanuunsan inuu ninka intuu lugaha SSR tu yiraahdo naaya maxay karaysanaya jikada maxay karaysa oo asagana maqaayada ka soo sheekay anigu taas baan ka hadlayaa kama hadlayo ilaah kuma darnaade inay naagti ay tiraahdo waryaa guriga waa u wada simanahay ama ilaah kuma darnaade ilaahay inna simin ninkan nirago ilaahay ka dhigay ya yani ilaahay baa quraankiisa ku sheegay الرجال قوامون على النساء معناها إلهي باك وحو كدغاي هوغاميه waxaan anagu ka dhigna ma ahan marka dumarka xuquuq bay leeyihiin raguna xuquuq bay leeyihiin anagu waxaan ka hadlay in la iscaawiyo oo ragga dumarka u naxariisan ka hadlay ma ahan laakiin naagtu inay ninkeeda ka soo hormarto oo tiraahdo anigu feminist wax la yiraahdo ma jiraan anagu dhaqan iyo islaam baan nahay dhaqan baan macnaheeda ma ahan nimankii haday ilaahay nooga dhigay nimankii haduu ilaahay nooga dhigay hogaamiyaal macnaheeda ma ahan inaan ka liidano waxa ba laga yaabaa inaan anagu ka fiicannahay waayo anaga hooyooyin baan nahay ilaahay baa saddex xuquuqna siiyay sharafu ilaahay noo yeelay gurigeena anagu iska joogno guri qabooba kira ka laga bixiyaa guri qabooba cuntada soo shaqeyn baa laga bixiyaa shopping aad adigu soo shaqeyn baa soo shopping gareysata ilaahay kuma darnaade guri kiraayo qabooba ku dhex jirta macnaha waxyaabahaas oo dhan yani waxaad ku sheegaysaa inaan anagu ilaahay qiimo noo yeelay taa macnaheeda ma ahan inaan anagu ragga ka liidano ma ahan inaan ka fiicanna ma ahan kama liidano laakiin hogaamiyaha qof walba shaqadiisa loo daayo qof walba shaqo ilaahay u yeelay oo ilaahay ba shaqo siiyay taas marka waxa waaye qiyaare waxa mid kale aan ka hadlay waxa waaye waa xaaraanta lagu faanayo gabadhan hadda meesha ilaahay ka bargi lahayd ilma xalaala oo saalixiin hatta ilma xalaala kaliya ma ilma saalixiin oo baariyaala ilaahay laga baryaa oo ilaahay caabuda marka waxa waaye in xaaraanta lagu faanin ayaan anigu ka hadlayaa macnaha aan ka hadlay waxay tahay xaaraanta gashay ha ku faanin ma aragteen nin
dhahay alla le ninkaas wacal buu dhalay alla le cunugaas wacal buu dhalo maaragtay mayna arkin waayo dambiga cunuga meher la-aanta ku dhasha weligiis wuxuu daba taagnaanayaa hooyada magaceedii buu qaadanayaa cunugaaga facis lama cayaari karo wacal baa la leeyahay adiga mujtamaca ma dhexgeli kartid nin haddaa guursatid xataa qiimo kuma yeelayo naag horey soo sinaysatay oo ilaahay kuma darnaaday wacal guriga u joogo asaga xataa agtiisa qiimo kama lihid because wuxuu isleeyahay naagta markaa ka tagtid ee cunug kalete ilmihiisu xataa ka shakinaya wuxuu isleeyahay ilmahan amaada adigu dhalin marka waa ootin kugu taagan marka waxaan leeyahay dambigii waaba gasheene war idinka intaad jidka soo istaagtaan ha dhihinina cunug wacal baan dhalay ilaahay kuma darnaad bal hadda ilaahay baa kugu dhaarshiyey awlaad saalixiina oo baariyaala meesha ilaahay ka baryi lahayd wacal bal ilaah ka baryaysaa lanka ka fiican wacalka gablan waxa waaye cidna dambiga kamaada gelin laakiin wacal inuu cunug ootin kugu noqdo waa dhibaato marka asxaabay dadka marka dhahaya haa dambiga waa loo wada sameyn yahay dumarka gooni maxaan ku ah dumarka gooniyo ku tahay cunuga meherlaanta ku dhashay weligiis kaama harayo marka asxaabay yaana waxba been isku sheegin gabdhaha soo korayana yaa been loo sheegin gabdhow idinkana waxaan ha dhagaysanina dumarkan waa dumar nolosha ka dhacay gabdhaha soo koraya oo hadda mustaqbalka raba gabaray haddaa meel soo istaagtid aad tiraahdo anigu waa sinaysta ama wacal baan dhalay ogow mustaqbalkaaga dambe ayay dhaawac gaarsiinaysaa ilaahay waa horta marka hore taba dambi ha gelin ilaahay wuxuu ku yiri walaa taqrabu sinaa horta marka hore sinada ha gelin ma xataa lagu dhahay ha u dhawaanina lagu dhahay marka hore taba horta dambi ha gelin oo ilaahay bahalka isheeg ka dheerow dambiga hadday kaa dhacdana adiga ilaahay ku koobnaato ilaahayna u toobadkeen anigu intaas uga baxaya waxaan daldalaysiin qarararacda qardajiyah iska daysiin runta isku sheegno gabdhahana ha naga halaajinina gabdhaan dhalnay hooyooyin baan nahay waa nala dhasheen gabdhaha been ha u sheeginina asxaabi intaas uga baxay سلامتهم تنفيذه فيديو لم يتنتب وكل مدونه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي نبدأ